داير على سونا اسم بنيان وأنا أسلم أووي واحد دلي وده على سوى بريها سو كريست عيال أسلم دلي كلمة أووي واحد دلي وقاعدين أووي إنجليز يقدم الناس نيجر دلي كلمة هي أووي إنجليز يبوريان يسجق شري أووي إنجليز يدايبر كورحي شري أووي إنجليز أيو تاتو صوها أووي إنجليز أيو هدلي كلمة هي طبعا الفوا كما قالوا لها وهذا نوح لها سيد محمد بن عبد الله بن حسن وهذه الكدماي المجاهد في سبيل الله قاتين اما كالين لباح بي كغا جيران تكفير كغلو كسغان يحي اتلحتقو كسغان maanta waxay aad u sheegaan ay kana cawdaan shabaab suufiyadu war suufiyo hore oo kacday baa jirtay oo sida shabaabka u shaqayn jirtay maxamed cabdillah xasan iyo daraawiishtiisii suufiyay ahaayeen dariiqadooduna axmediyay ahayd oo saalixiyay ka ahayd ummadda qaybtooday gaabiyeen oo ay dab saareen oo aynay cidnaba kala reebin madax iyo manjo ya aynay kala saarin qabaa'il dhan dhiiggooda xalaashadeen sida shabaabku hadda u mucaamilaan bay u mucaamili jireen maanta shabaabku waxay yidhaahdaan maxamed cabdillah xasan baanu ku dayanaynaa suufi buu ahaa suufi ayuu ahaa dee soomaali isaga ciddii raacday mooyaane intii kale waa gaalaysiyo milladdu ka saaray dhiiggoodana waa bannaystay xoolahoodana waa bannaystay taasi waa mid xagga qaadiriyada haddii la eego qaadiriyadu saalixiyada iyaguna waa gaalaysiiyeen milladay ka saareen uways dariiqada qaadiriyada uwaysiya zalciyaa la kala yidhaahdaa way u kala abtirsadaan uways wuxuu tiriyey gabay carabi ah oo uu saalixiyada kaga hadlayo midhihiisii ma wada hayo laakiin midho ka midaan sheegaya wuxuu yidhi isagoo saalixiyada sheegaya hum lmubiixuuna dimaa'a alculamaa waalmaala waalxariima hum ibaaxiya yacni dhiigga culammaday bannaysanayaan maalka iyo xariimkana waa bannaynayaan waa ibaaxiyo saalixiyaduu sheegay waa soo waday waxaa ka mid ahayd isagoo saalixiyada sheegaya laa yaqtaduuna khalfa man lahu shacar siimaahum ataxliiqu kalwahaabiya ilaa uu ka yidhi wayafcaluuna annukra fii dikrihim qawla wa ficlan yaqtadii kufraaniya nasuhum biaayati man zuyin fii faatiri الsama kama fi اlxaashiya وبحديث أحمد خير الورى هم شر الخلق هم دجالية طوبى لمن قتلهم أو قتلوا ذاك في نص البخاري آتية يقول أحمد بن حجر ورملنا وكل عالم من العرفانية لقتل واحد من أولئك أفضل من 100 كفر عادية وحيري لمن كالصالحية اللي يلاذا إنه وهابية قال أيه سقو وهابي وكذا وهابية قال أيه هذا وصوفية إسلامية
kuwii suufiyada la ahaa hadduu sidaa leeyahay ma dadka kaloo caana u lisaya ya wuxuu leeyahay waxaa u daliila aayadda markaa waxaa u daliila aayadda yani ku sugan faatir afaman zuyina lahu suu'a camalihi fara'aahu xasana sida xaashiyada saawiga ku sugan ala saawiga wuxuu yidhahdaa wahaabiyaday ku saabsan tahay aayadduna waxay ku saabsan tahay ahlu dalaal tafsiirku sidaa ku fasiraya waa baatil axaadiistii khawaarijdu deedna u daliishanaya wa bixadiisi axmeda khayr lwaraa hum sharu lkhalqi hum dajaaliya tuuba liman qatalahum aw qataluuhu daka fi nasi lbukhaari aatiya qaala axmed bnu xajarin haytami buu sheegaya wa ramluna waa labadii qamaraankii ya waa nihaayadii iyo tuxfadii buu kala jeedaa saaxibu nihaaya iyo saaxibu tuxfa qamaraan bay ula baxeen wa kullu caalimin min alcirfaaniya caalim kastoo ahlu macrifaha ka midina waa yidhi he laqatlu waaxidin min ulaa'i afdalu min 100 kufrin caadiya mid saalixiyada ka midoo la dilaa 100 gaal oo la dilay ka khayr badanta salow dadka kalena muxuu odhanayaa kii suufiyada la ahaa hadduu leeyahay mid ka midoo la dilaa 100 gaal in la dilo ka khayr badan marka takfiirka saasay xadda alawfar uga qaateen oo ugu leeyihiin culammadii ibnu taymiye way gaalaysiiyeen suufiyadii hore qaar badan baa gaalaysiiyey oo yidhi waa zindiiq culamo badan oo kale ay gaalaysiiyeen wixii nixladooda iyo dariiqooda khilaafa milladda waa ka saarayaan iyagana halkaa idhig wax bumbuurinaya maaragteen maya waxaa ka mid a shiikha culimmada soomaaliya ugu cilmiga badan cabdikariim xoosh oo reer burca weligiin wax ka hadlaya maaragteen dhallinyaradaan maaragtay anugu waan isla joognay yaman wax bumbuurinaya maaragteen maya waxaa ka mid a shiikha culimmada soomaaliya ugu cilmiga badan cabdikariim xoosh oo reer burca weligiin wax ka hadlaya maaragteen dhallinyaradaan maaragtay anugu waan isla joognay yaman wax bumbuurinaya maaragteen maya waxaa ka mid a shiikha culimmada soomaaliya ugu cilmiga badan cabdikariim xoosh oo reer burca weligiin wax ka hadlaya maaragteen dhallinyaradaan maaragtay anugu waan isla joognay yaman